maanta waa qayb ka mid ah qaybaheennii taxanaha ahaa ee sawiraanta dhiirigelinta ah. runtii halka sawir wuxuu u dhigmayaa 1000 eray in ka badan oo aan kuu sheegi lahaa. runtii sawiraanta maanta waxay yihiin qaar xiiso badan leh oo runtii haddii aad aragto aad soconayso oo aad 100 jeer in ka badan aad ku ceshanayso, yacni micnaha weyn ay gudbinayaan. balan bilaaban nin baynu aragnaa kala laada buur jirkeeda markaa doonayo markaa inuu xoog ku soo dhaafo. markaa waxa lagu leeyahay cid markaa ku imanayso oo ku badbaadinaysa ma jirto. 100% noloshan adiga ayaa mas'uulka ah. cid intii ku soo qabato ku oranaysa soo hebele soo qabto maaragtay caawin ma jirto. ninka kugu dhow ee wax ku taraawo ninka ku dhaha ebelow wadada waa lagu jabay saaxiib iska eego dhacamar, laakiin intuu gacanta ku qabto ku marinaya ma jiro. So you have to take your responsibility of your life. marka waa inaad qaado mas'uuliyadda noloshaada dhan oo aad marto wadada ugu habboon. waxaa ka nooga muuqda ilmo yar oo aad moodo sida caag oo kale markaa wax lagu shubayo biyo midabo kala duwan ah markaa ku jiraan orange, red, blue, light iyo sidoo kale susani. markaa orange-ka markaa lagu shubay markaa waxay tahay adiga ayaa mas'uulka ah. markaa naftaada waxaad isu dayso, yani maskaxdaada waxaad yani isku qaabanayso adiga markaa mas'uulka ah. halkan waxaa nooga muuqda nin markaa doonaya inuu kalluun soo dabto oo markaa qolalka kalluunada soo qabta kursiga ku fadhiya wax markaas kursiga uu la jihaysan yahay oo bahalkiisii wax ku soo qabanayay kalluunka meelaan kalluunba ku jiro. halka ka dambeysana waxaa maraya 100 kalluun oo weliba dibadda soo jira. mararka qaarkood inaad tiro waa samir badanahay oo meel maro baan u sabraya socon mayso. inaad dhinacyadaada eegtaa tiro talal fursado ba ka dhow yihiin meesha meel dhaanka ma yar jirta hadee look around dhinacyada eegtade ya. marka ninkan waxaa inka ku khasab ah inuu bedelo direction-ka marka uu jeedo xagga dambe u soo jeesto si uu marka kalluunka badan uga faa'iideysto. mar walba horan yani samkiga badan in laftiga aad marka eegto options kale markaa furan oo aad ku guuleyso. You can't reach your goals if you put your hands in your pockets. Yeah. Landheeraan ahayo ya laguma talagelin aan shaqadan qabano markaa adeer waxaan anagu waanu dhalanay hiddaan u leenahay hiddo ya gacmaha intaad iska gashatay jeebkada hiddaan u leenahay dee lacagtii waxaasoo awogii baa lacag lahaayo dabaqyadan aad arkayso oo dhan ilmo hebel baan nahayo annaga iskale markaa dee waxaan hiddaan u leenahay waxaasi ma jiraan. haddaad gacmaha isgashato ninka ka boodila birta yar baad noqonaysaa. haddii aad boodana ninka gidaarka intaa la ka boodaya aad noqonaysaa. waxaasi ma jiraan. haddii aad gacmaha jeebka iska gashato sida ninka dee landheeraha oo kale iskaga taagnaan oo birta yar kama boodi karaysid. laakiin haddii aad awoodahaaga iyo fishikaaga aad arkayso gidaarka iyo mid ka dheer ayaad ka boodaysaa. waxaad joojisaa khuraafaadka inta badan aaminsannahay. muuqan iyo khalkhalkan maskaxdaada ku furayso jooji sida ninkaas markaa caadooyinka yar ee quruxda badan leh maskaxdiisa ku sameynaya markaa caadooyinkaas markaa naftaada u abuur si aad isbedel xoog leh aad u samayso. sawirkan wuxuu inoo gudbinayaa micno weyn oo ah haddii aad waqti badan ku bixiso ka fikirka bilowga inaad dhammaynaysaa suuragalkaba ubadda. waxaad markaad bilowdo ayaa dhammaadkana la arki karaa. markaa saaxiibo badan oo anigu aan si life u garanayo maalin kastoo aan la kulmo shaqada way bilaabayaan, hawl bay bilaabayaan, hawl ayay qabanayaan. markaa you never haddii aad maanta bilow weydo wax suuragelaya maaha waxaad wadaa. markaa waa in aad joojiso in rajadan bilowga on laakiin aad bilowdo inaad tiraho today is my day and now is my time and to start it just now. waxaa laga yaabaa waraaqdan inay ka mid noqoto waraaqaha aad weligaa akhriso. saaxiibow badweynta weyn aad aragto ma quusin karaan markabka yar ee dul soconaya markaa badweynta aad arkayso. ilamaan uu markabku ogolaado qayb yar oo ka mid ah oo dalool ahi inuu biyuhu soo galaan kadibna ay biyuhu markaasi badweynta ahayd ay markaa markabka dejiyaan. yani markuu markabku ogolaado in yaroo ka mid inay dabaashato ay markaa awood u yeelanayaan biyahan inay dejiyaan. sidaas si lamid ah
adiguna dadka adduunka ku nool oo dhan haddii ay isku yimaadaan oo ay ku caayaan oo ay wax walba ku yidhaahdaan waxba kuma yeelayaan ilaa malamis caqligaaga iyo madaxaaga aad u sii daysatay erayadan ay ku leeyihiin oo aad qaybta processka ku dartay maskaxdaada so ha u ogolaanin erayada negative-ka ah ee maskaxdaada iyo caqligaaga ay galaan just forget it and move on sawirkan wuxuu muujinaya nin xafiis ka fadhiya oo hawshiisa wata oo barnaamijkii sameynaya nin baa weyga ku qoslayo leh waxaan ragga horaa ku jabay yaa waraadar waxba isbuale waraadar waxa la leeyahay ku soo jabnay oo ragga horaa ku jabay oo raggii hore xitaa waxba ku heli waayay isagu muxuu sameynaya laakiin hawshiisa wata sababa marka cidna adeer keerahsiin cidna tixgelin awood ma lihid inaad qof kasta markaa qanciso marka just waxaad focus garaysaa hawshaadana aad wado iyo naftaada ku yar ayaynu arkaynaa halkan oo markaas baaskiil malaa ka dhacay markaa ninbu markaa ku yidhi abale caaw malaayo isagoo ooyo markaa arkay marka adeer waxyaaba adeer iska marka koowaad qof markaa aad u wanaagsan xitaa ma jiro yani waxaan uu qabtay markii koowaad buu ku guulaystay iminka Facebook la intaasoo program buu sameeyey Bill Gates intaasoo barnaamij ayuu ku fulgaroobay Jack Ma intaasoo meelood baa laga soo diiday intaasoo wax buu markaa ku fulgaroobay markaa qof walba isku dayga koowaad wax ku meelay waxa la isku dhaafay try again ayaa la isku dhaafay markaa waa inaad try again waan guulaysanaa marar badan oo guulo badan ayuu gaari doonaa waxaan doonayaa inaad halka hoose fariinta aan la wadaagto sawirkeeda ugu saameyn badnaan inta muuqaalkan aad daawanaysay oo aad fariinta hoose ee comments-ka ugu reebto haddii aad barnaamijkan ka heshay like share si aan markaa asxaab badan oo markaa dhiirigelinta aad u jecel u gaadho inta ku kulmi doono barnaamij lamida waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh